Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhegeystayaasha sharafta leh iyo daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ku soo dhowaada mar kale iyo casharkeenii Biology Secondary Form 1 chapterkiisii labaad casharkiisii koowaad. Chapterka waxa uu ku saabsan yahay the cell structure and function. The cell structure qaab dhismeedka seelka ama unugga waxa la yiraahdo ee uu noolaha ka unkamo, and function iyo qaabka uu u shaqeeyo. Seelka sida uu dhisan yahay iyo sida uu u shaqeeyo. Chapterka waxaynu kaga hadli doonaa ilaa iyo dhowr qodob. Waxaynu kaga hadlaynaa insha Allah taala the cell and its discovery. Seelka iyo xilligii seelka la helay iyo taariikhdiisaba. Size and shape of cells. Cabirka iyo qaabka seelka uu leeyahay ama unugga uu leeyahay. The microscope-ka ama shaybaarka ama weynaysada aynu kaga hadlaynaa. Iyo qodobo kale oo badan. Maanta waxaynu kaga hadlaynaa labada qodob ee ugu horeysa the cell and its discovery. Seelka iyo xilligii la kashifay oo la helay seelka. Iyo cabirka seelka aynu kaga hadlaynaa iyo qaabka uu yahay. Fadlan dhageystay haddii aad ku cusub tahay channelkeeni Kororsa Aqoon, subscribe garay si aad u hesho xogta la soo dhigo channelkeeni. Page-keena follow ku sameey oo share garay, like-tana inaga bakhiilin si aan hore u socono. Dhiirigelintaaduna waa inoo muhiim. Sidaynu wada ognahay, nooluhu waxa uu ka soo bilaabanayaa cell sida sawirka ka muuqda page-ka 11. Nooluhu waxa uu ka bilaabanayaa cell unug. Dhowr unug hadday aruuraan waxay noqonayaan tissue nude. Dhowr nude hadday aruuraanna waxay noqonayaan organ xubin. Dhowr xubno hadday isbiirsadaan waxay noqonayaan organ system, habdhis bay noqonayaan. Habdhisyada jirka ku jira ee sagaalka ahna hadday isbiirsadaan oo gebigood la isku darana organism, noole ay samaynayaan. Haddaynu qeexno cell marka ugu horeysa, what is a cell? Waa maxay cell? The cell is defined as the smallest structural and functional unit of all living organisms. Cellka waxaan ku qeexaynaa inuu yahay waa waxa ugu yar ee uu ka dhisan yahay uuna ka shaqeeyo ama shayga keliya ee shaqada haya ee noolaha weeye. Waa shayga ugu yar ee uu nooluhu ka dhisan yahay shaqadana haya ayaa waxaa la yiraahdaa cell baa la yiraahdaa, unug. Sidaynu hor u soo sheegnay, mar kale ayuu ku soo celinayaa. Nooleyaasha qaarkood sida amoeba iyo bacteria waxay ka kooban yihiin hal cell. Waxaa kaloo ka mid ah nooleyaasha halka cell leh yeast ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah plasmodium. Kuwaas oo dhan waxay leeyihiin hal cell. waxaana lagu magacaabaa unicellular organisms, nooleyaal hal cell ah. Nooleyaasha badankoodu laakiin waxay ka kooban yihiin cellal fara badan sida cambaha, maroodiga. Kuwaana waxa weeyaan waa multicellular organisms, waa nooleyaal cellal badan leh ayaa lagu magacaabaa. Cells are so small they were not discovered until the invention of the microscope in the 17th century. Cellashu aad bay u yar yihiin. Waxa weeyaan lama helin cellka ama unugga lama helin, lama ogaanin ilaa waxa weeyaan microscope-ka laga helay qarnigii 17aad. In 1665, Robert Hooke observed a piece of cork under the microscope and found it to be made of small compartments which he called cells, Latin cell, small room. 1665 ay ahayd markii ugu horeysay ninkii la dhihi jiray Robert Hooke uu arkay microscope-ka uu ku arkay uuna ogaaday cellka uu ogaaday. Wuxuuna u bixiyay cell ayuu u bixiyay. Cell waa small room, waa qol yar ayaa laga wadaa. Marka xilligaas ayaa ugu horeysay ee la helay cellka
waxaana helay Robert Hooke la yiraahdo 1665 bay ahayd. Marka taariikhda seelku waa intaas. 1673 in la yiraahdo Anton van ayaa wuxuu helay bakteeriyada isaga arkay sperm cells unugyadii oo spermiska ama sperm cells manida unugyada manida isaga arkay red blood cells ku arkay wuxuuna ku magacaabay animalcules ayuu ku magacaabay ama little animals xayawaano yar yar uu ku magacaabay. 1831 Robert Brown in la yiraahdo oo waxa weeyaan British ah oo ayaa waxa weeyaan uu ogaaday isagana wuxuu helay waxa la yiraahdo nucleus bu'da. Ninka bu'da soo saaray seelka dhexdiisii ama unuga dhexdiisii in ay bu ku jirto isaga helay nucleuska isaga soo helay. 1838 in botanista ah oo dhariiqaan ah oo German ah isaga helay haddana wuxuu wuxuu cadeeyay ninkaas in dhirta oo dhan in ay waxa weeyaan ay soocan yihiin ayuu cadeeyay asaguna seelal ay waxa weeyaan ayuu ku magacaabay. 1839 nin German ah oo physiologist ah ayaa wuxuu cadeeyay animal tissue nodayaasha xayawaanada ay ka kooban yihiin in ay ka samaysan yihiin seelal ayuu cadeeyay asaguna. intaas markii la isu geeyay 4 qof ilaa 5 Robert ku dar 5taas chemistry-yahan wixii biology-yahan wixii ay soo saareen markii la isu geeyay ayaa waxa ka soo baxay cell theory aragtida seelka. Cell theory ayaa halka ka galeynaa aragtida seelka laga aaminsan yahay. Cell biologistsku maxay ka aaminsan yihiin oo waxa weeyaan oo u qoran oo xeer ah. Cell theory states that aragtida seelku waxay cadeynaysaa all organisms are composed of one or more cells. noole kasto waxa uu ka dhisan yahay uu ka samaysan yahay ka soo unkamay hal ama seelal badan. Marka shay kasto nool plant ha noqdo ama animal ha noqdo ama human being ha noqdo bani aadan ha noqdo waxa uu ka yimid cell ayuu ka yimid ama seelal badan. Cells are the basic unities of structure and function of all organisms. Seelashu waxa weeyaan waa shayga kaliya ee aasaaska u ah qaab dhismeedka iyo shaqada noolaha. noole kasto waxa uu ka dhisan yahay ama waxa uu shaqeeyo jirkiisa howlaha uu wada oo dhan waa cell weeye. Cells arise only by division of a previously existing cell. Seelashu waxa ay ku tarmaan oo kaliya ay ku koraan ku bataan division wax la yiraahdo inay qaybsamaan. laba process ayaa jiro seelashu ay ku qaybsamaan waxayna ka imaanaysaa qaybintaasi previously existing cell unug hore u jiray oo division sameynaya ay wax weeyaan seelasha dhan ay ka unkamayaan ay ka imaanayaan. waxaan halkan ka galeynaa size and shape of cells cabirka iyo qaabka seelashu ay noqon karaan. cell waa wax intee leeg baynu halkan ka galeynaa wax weyn miya mise waa wax yar. Cells vary greatly in size and shape. seelashu aad bay u kala duwan yihiin waxay aad ugu kala duwan yihiin xagga cabirka iyo muuqaalka. You can express their size in unities called micrometers. Micrometer ayaa lagu cabiraa seelasha cabirkooda. 1 micrometer is 1/1000 millimeter. halkii micrometerna waxa weeyaan waa 1 millimeter oo loo qaybiyay 1000. yani waa wax aad u yar oo aan ishu qaban karin weyn. seelasha waxa lagu cabiraa micrometer. halkii micrometer waxa weeyaan 1 millimeter oo loo qaybiyay 1000. millimeter waa la yaqaanaa waa diilimaha yar yarka ee mastaradu ay ka kooban tahay oo 1000 loo qaybiyay halka xabo ayuu seelku cabirkiisa noqon karaa. A typical cell is about 20 micrometer in diameter. cell baa wuxuu dhexroorkiisa uu noqon karaa dhexdiisii marka la cabiro 20 micrometer waa 20 loo qaybiyay 1000 marka waa 0.02 millimeter waa wax aad u yar weey.
large organisms contain millions of cells nooleyaasha waaweyn sida dhirta iyo xayawaanada oo kale waxay leeyihiin malaayiin oo selal ay leeyihiin. The largest cell is an ostrich egg. Cellka ugu weyn waa ugxanta gorayada weeye, which is about 170 times 135 millimeter, taasoo ah 170 lagu dhuftay 135 millimeter. Marka cellka ugu weyn waa ugxanta waxa weeyaan gorayada weeye. The smallest cellka ka ugu yarna is a bacterium, waa bacteria weeye, which is about 0.25 micrometer. waa eber dhibic 25 micrometer weeye in size cabirkeeda. waa cellka kan ugu yar weeye. Human blood cells unugyada human red blood cell unuga dhiiga cas ee bani aadanka laga helo is about 7.5 micrometer in diameter. waa 7.5 oo micrometer weeye dhexroorkiisa marka la fiiriyo. The diversity of cell shape reflects the different functions of cells. sida ay u kala duwan yihiin qaababka seelasha waxay u kala duwan yihiin shaqooyinka ay ka hayaan noolaha dhexdiisa. Types of cells aynu halkan ka galaynaa noocyada seelasha. seelasha waxaa loo kala qaadaa laba nooc, prokaryotic cells iyo eukaryotic cells. Cellka oo waxa weeyaan aan lahayn bu oo habaysan, bu'deedii ama waxa dhexda kaga jira cellka haddii aysan habaysnayn oo aysan ku daboolnayn dabool oo cell aysan ku daboolnayn waxaa la yidhaahdaa prokaryotic. midka bu'diisu ay habaysan tahayna oo dabool cell ay ku daboolan tahayna waxaa la yidhaahdaa eukaryotic ayaa la yidhaahdaa. Prokaryotic cells haddaynu qeexno are the cells that don't possess a well-formed nucleus. waa seelasha aan lahayn bu oo fiican aan lahayn, such as bacteria, sida bacteriyada oo kale ka mid ah oo wax weeyaan daboolkii bu'da ma leh. Eukaryotic cells ayaa jiro, are cells that possess a well-defined nucleus. waa seelasha leh bu habaysan leh, covered by a nuclear membrane, waxaana ku daboolan daboolka bu'da ayaa ku daboolan. yani seelashu waxay u kala baxayaan kuwa leh dabool cell leh, kuwa bu'doodii oo membrane ku daboolan, xuub ku daboolan ama dabool ku daboolan, iyo kuwa bu'doodii aan ku daboolnayn wax nuclear wax membrane aan ku daboolnayn. marka kuwa nuclear membrane leh oo bu'doodii ku daboolan dabool waxaa la yidhaahdaa eukaryotic. kuwa aan bu'doodii wax oo xuub saarnayn dabool saarnayn waxaa la yidhaahdaa prokaryotic. marka prokaryotic waxaa ka mid ah bacteria, eukaryoticna waxaa ka mid ah plant and animal cells, unugyada dhirta iyo xayawaanada. halkaas baynu kusoo gabagabeynaynaa casharka maanta. dhegaystayaal iyo daawadayaal fadlan sheer gareeya oo la soco insha allah.